garabka ciyaaryahanada gobolka Gabiley ayaa maanta si rasmi ah uga anbabaxay gobolkani Gabiley isla markaana u anbabaxay caasimada Soomaaliland ee Hargeysa sidii ay uga qayb gali lahaayeen ciyaaraha tartanka Soomaaliland ee la filayo inay labada Juun ka furmaan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa munaasabad ballaaran oo lagu sii sabootinayo ciyaaryahanadaasi ayaa waxa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley maamulka heer gobol iyo heer degmo uqaal waalidiin dhalinyaro iyo weliba ciyaaryahanada gobolkani waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay barsaabka gobolka Gabiley Yusuf Ibrahim Geedi iyo maayirka magaalada Gabiley iyo weliba xogeyaha fulinta dawladda iyagoo sheegay in dhammaan ootiyaan isla markaana ay Ilaahay uga baryayaan inay guul soo hooyaan sidoo kale isaguna waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Amiin Cumar Cabdi Amiin Cumar Dheere oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaasina ka marakacay in ay iyagu ka gaabiyeen doorkii ay ku lahaayeen waxaana sheegay in ay maanta iyo wixii ka dambeysaba ay hiiliyahooda la garab taagan yihiin ciyaaryahanada gobolkani ka taliyaha qaybta gudoomiyaha degmada ku xigeenka xooghayaha ciyaartooyga sharafta mudan ee gobolka Gabiley matalaya suldaanka iyo dhammaan marti sharafta kala duwan ee halkan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaanu ku jirnaa waqti iska kulul oo duhurkiya hadalaayo saddex qodob baan doonayaa runtii inaan ka hadlo horta aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa ciyaartooyga sharaf iyo cisi fara badan oo aanu idiin haynaa guud ahaan gobolka iyo dadweynuhuba waxaan idinka raali gelinaynaa inta yar ee tabanasaan ee muddooyinka u dambeeyay runtii ma dafirano way jirtay cabashadu laakiin meel u maaha dee waynu wada qabnaayo wasaaradii dhalinyarada ciyaaruhu cabashada way leedahay oo laga weecin maayo gobolka kuma la xafiis shaqaynaya hadduu xafiis shaqaynayo maamul active jiro cabashadiinu sidan uu mar walba uma taagnaateen taas waa mid uqaasha iyo salaadiinta oo iyaguna munaasabadaasi soo gabagabeeyay waxay Ilaahay uga bariyeen inay ciyaaryahanadani guusha soo hantaan waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba telefishinka caalamiga Samsat magaalada Gabiley